بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay taariikhdu tahay kowdii bishii 12aad oo ah maalintii loo asteeyay eediska adduunka in laga hadlo ama dadka looga digo iyo dhibaatada uu leeyahay. runtii waxaa dadweynaha gobolka Awdal inagoo oo naala 3 xuduud dhexdood oo socodadu inagu fara badan tahay. waxaan ku baraarujinayaa in ay raacaan intii ama astaantii diinteennu inoo adkaysay taasuba lagu badbaadi karaya oo ah in zinada iyo xaaraanta la iska ilaaliyo. wixii ka sokeeyaaba waxa laynooga digayna waa wax la mid ah. runtii waa aafo caalamka oo dhan runtii saamaysay. taa iyadaana ay dhici karto dadka qaarkood inaanu uguba imanin in ay sameeyaan waxyaabo xunxun, hase yeeshee irbad muddo laga qaadi karo in dadku aad iyo aad runtii uga taxadiraan. waxa ugu weyna la iska ilaaliyo oo ah galbada xaaraanta. waxaan runtii mar labaad dadweynaha reer Awdal iyo dadweynaha Somalilandba iyo dhallinyaradaba ugu baaqayaa inay raacaan sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo guurka la fududeeyo oo dhallinyaradu guursato. si keliya lagaga badbaadi karaa waa taas. wasalaamu calaykum. bas waa bismillaahi raxmaani raxiim. waa laba waroo kala jaada sidoo kale u booran doonaa ayaga dhigan. runtii maanta waxaan ka soo laabanay socdaal aan gobolka in badan oo ka mid a ku soo marnay, in badanna ay runtii noo dhiman tahay oo ay ka mid tahay degmada Boorame meelo ka mid ah, degmada Baki iyo degmada Lughaya. waa dhul aad u kala fog runtii aan la wada gaari karin, laakiin intii aanu ka gaadhnay waxyaabihii aanu ku soo aragnay ayaan warbixin yaroo kooban runtii ka bixinaya, iyadoo kolley wariyana nala socday oo barnaamijku sidiisa u soo bixi doono. waxaan runtii aad iyo aad ugu baaqayaa dadweynaha ay ku soo guureen soo guurtadu oo culays badani runtii uu saaran yahay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo in aan ilaahay barino in ilaahay abaartan ka soo jabiyo gobolka iyo gobollada kale ee Somaliland ay nala qabaa dhibaatadanba. sababtoo ah waxaan aragnay xoolihii ka soo guuray dhinaca shishe Ethiopia halka ugu sarreysa gobolka. jifada xoolihii ka tegay waxaan ugu tagnay xeebtii, welina wuu socdaa hayaankii. kulley waxaa ku arki doontaa sawirrada iyo waraysiyadii aan ula yeelanay. waxa weeyaan taasi waa abaar baahsan oo runtii jirta. roob waa daay, meelaha qaarkood si fiican baa looga cabbay oo biyo la'aantii wax weyn buu inaga taray. meelaha qaarkoodna deegaan buu wuxuu ka soo saaray, tigaad buu ka soo saaray oo waa taa lagu qaxayo. waxay ku tusinaysaa isugu imaatinkaasi la isugu yimi xeebtu in ay tahay xoolaha jooga ilaahay unbaa runtii maanta qiyaasi karaa. taasna waxaa keentay waa iyadoo aanu dhammaynin ama aan roob baahsani ka diin, aanu gobolka ka diin. runtii waana mid xaqiiqaa maaha midaannu cidna waxba kaga doonayn, waa xaqiiqada taalla gobolka weeyaan. abaartaas ilaahay inaga soo jabiyo, ilaahay qof walbana meeshiisa inuu ku siiyo ayaan ka rajaynaynaa raxmaad khayr qaba. waayo culayska saaran iminka xeebta gobolka Awdal iyo soo guurtada runtii aad iyo aad baan uga warwarsannahay, hadday tahay xagga nabadgelyada iyo hadday tahay xagga caafimaadka iyo hadday tahay xoolaha caafimaadkooda laftigeedaba. waan dalbannay, waxaan u dirnay 2 tiim oo midna wasaaradda caafimaadka yahay, midna wasaaradda xanaanada xoolaha yahay. hase yeeshee waxba kama tarayaan.
كل intaa mana waan u gudbi doonaa wasaaradaha ay arrimahaas xuseynayeen iyo isduwayaashooduba in si degdeg ah looga howlgalo meelaha si dadku isugu yihiin mar labaad waxaan ugu baaqayaa dadweynaha lagu soo guuray deegaanada xeebta oo runtii ay oogada kaga wanaagsan yihiin aanay ahayn dhul la kala qoqobtay ay tahay dhul daaqu u furan yahay ummadoo dhan wada daaqayso waxa laga soo guuray saaxil waxa laga soo guuray gabiley waxa laga soo guuray kanalka shanaad awdalna hadalkeeda badaa sidaa darteed mar labaad waxaan ugu baaqayaa dadweynaha culayskaasi haysto iyo deegaanadaasi oo hore abaar weyn runtii ugu dhacday oo qaarkood aanay xoolo u daaqaba haysan in soo guurtadaasi la soo dhaweeyo waayo duruuf iyo dan baa keentay runtii duruuf iyo dan baa keentay nooc walba way leeyihin xoolaha jooga geelii baa jooga adhigii baa jooga loodii baa joogta saddexdii meesaba way ku dhan yihiin waxaan ugu celcelinayaa culayska deegaankaasi roobku helay saarani maaha runtii mid la dheelsan karo waa si wanaagsanna way u soo dhaweeyeen waxaana rajaynayaa inay si wanaagsan u nabadgeliyaan ilaahay qof walba meeshiisa ku soo qaboojiyo oo ilaahay raxmaad khayr qabo caamaya inuu inoo wada shugo. Assalaamu calaykum.